Sheekh Cali Wajiis oo ku amray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya in si degdeg ah ay uga toobad keento hadal ay ka horjeedisay golaha shacabka. shirkii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo la joojiyay faahfaahino ka soo baxaya madasha xisbiyada qaran oo madaxweyne Farmaajo ku tilmaamtay kaligii taliya doonaya in Soomaaliya kaligii uu ka arimiyo qoor oo fashiliyay sir la xiriirta shirka Villa Soomaaliya wadaado u socday Quraansaar oo qarax lagu laayay wasiir ka tirsan Somaliland waxa lagu waramayaa in laga helay coronavirus isaga iyo shaqaalihiisa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. waa habeennimo Talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay 15 bisha September 2020 warkii oo dhan. Sheekh Cali Wajiis oo kamid ah culumaadiinka Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaan geyga ay Soomaalida degto ayaa waxa amar degdeg ah uu ku bixiyay xildhibaanad Maryan Haruun in si degdeg ah ay u toobad keento isagoo sheegay hadal ay ka horjeedisay shalay golaha shacabka in uu ahaa hadal gaf ku ah diinta Islaamka isla markaana loo baahan yahay in talaabadan si degdeg ah ay ugu dhaqaaqdo si wax shariicada ay ka qabto aan loo fulin. xildhibaanad Maryan Haruun ayaa ka horjeedisay golaha shacabka aragti ay qabtay oo ku saabsan in dadka Soomaalida ah aanaysan diinta Islaamka loo ogolaado in dalka ay ka qabtaan taasi oo ay si weyn uga xumaadeen guud ahaanba xildhibaanada golaha shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed iyadoona sidoo kale halkaasi looga doodayay sharci la xiriira dhinaca jinsiyadda oo ay soo gudbisay wasaaradda xuquuqul insaanka iyo arrimaha haweenka kaasi oo guddiga golaha shacabka ay sheegeen in uu yahay mid ka hor imaanaya diinta Islaamka isla markaana xilligan lagu jiro xilli adag oo Soomaaliya ay u baahan tahay in sharciyada noocan oo kala ay iska badbaadiso. xildhibaanad Maryan Haruun inkastoo aysan wax war ah ka soo saarin eedeynta culus ee uga timid Sheekh Cali Wajiis haddana warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in laga yaabo saacadaha soo socda in xildhibaanada ay si cad uga hadasho mowqifkeeda ku aadan eedeyntan culumaadiinka ay u soo jeediyeen. shirkii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaa la joojiyay iyadoona faahfaahino kala duwan ay ka soo baxayaan. wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya Villa Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in la joojiyay shirkii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada isla markaana fasax kooban ay galeen guud ahaanba mas'uuliyiintii ka qayb galayay shirkan oo uu ku weeliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. ujeedada ayaa waxa lagu sheegay inay tahay in qodobo dhowr ah oo la isku mari waayay awgeed loo baahan yahay in dib ay ugu laabtaan wafuudda ay kala hogaaminayaan mas'uuliyiinta maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir isla markaana ay kala soo tashadaan bal sidii isbedel loogu sameyn lahaa qodobada la isku hayo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobada uu ku dhagan yahay ayaa waxa kamid ah daawadayaal iyadoo madaxweynaha uu si toos ah u doonayo in Xaliim Yari ay doorashada maamusho halka ay ka soo horjeedaan maamul goboleedyada isla markaana ay sheegeen inay u baahan yihiin guddi doorasho oo cusub oo kormeeri kara doorashada. haddii madaxweyne Farmaajo qodobadan lagu sii adkeeyo in ay u meel maraan waxa uu wajahayaa caqabad kale oo siyaasadeed oo dadka qaar ay sheegayaan inay ka hor istaagi karto riyadiisa ah in mar kale dalka loo doorto ama waa in aysan dalka doorasho ka dhicin. madasha xisbiyada qaran ayaa madaxweyne Farmaajo waxa ay ku tilmaameen kaligii taliya doonaya in dalka isaga oo kaliya uu ka arimiyo. war-saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxa lagu sheegay in xilligan dalka wax xukuumadda aysan ka jirin taasina ay daliil u tahay in madaxweyne Farmaajo dastuurka uu ku tumanayo. madasha xisbiyada qaran waxay madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen ku tumasho dastuurka kumeel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya cuuriyaaminta shaqooyinka baarlamaanka sidoo kalena inuu meesha ka saaray xukuumaddii shaqaynaysay ee dalka gaarsiin lahayd doorasho. qoraalka madasha oo waxyaabo badan lagu soo hadal qaaday waxa sidoo kale ku jiray in madaxweynaha lagu eedeeyay inuu sameeyay jahwareer siyaasadeed iyo khilaafaad daba dheeraaday oo guud ahaanba dalka ragaadiyay.
waxa uu intaasi ku sii darayaa war-saxaafadeedka ka soo baxay madasha xisbiyada qaran in madaxweyne Farmaajo uu la soo baxay kaligii talisnimo ay u arkaan in muddo 50 maalmood ka badan dalka uusan lahayn ra'iisul wasaare taasi oo xadgudub ku ah dastuurka. madasha xisbiyada qaran waxaa sidoo kale ay ka hadleen in jahawareerka siyaasadeed ee dalka uu ku jiro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu mas'uul ka yahay isla markaana dhibaato kasta oo dalka ka dhacda isaga mas'uuliyadda uu qaadi doono. madasha oo ay ku jiraan xisbiyo aad u culus oo ay kala hogaamiyaan madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa dhawaanahanba waxa ay soo saarayeen warar la xiriira in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo in uu muddo kororsi sameysto iyagoona digniino kala duwan ka bixinaya. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu qarxiyay sir la xiriirta qodobada rasmi ahaan la isku mari laayahay ee shirka Villa Soomaaliya ka socday maalmihii ugu dambeeyay. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo maanta hortagay golaha aqalka sare oo matala maamul goboleedyada ayaa waxa uu u sheegay inay jiraan weli tabashooyin ay kala qabaan dhinacyada ka qaybgalaya kulankan muhiimka ah ee masiiriga si toos ah looga hadlayo. ayaa waxa uu sheegay in weli aan la isku soo dhawaan isla markaana meeshii horeyba loo kala taagnaa la kala joogo. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in xilligan dalka marxalad adag ay wajahayso isla markaana waxa uu u soo jeediyay guud ahaanba dadka siyaasiyiinta ah maamul goboleedyada siyaasiyiinta aan xilalka haynin iyo kuwa xilalka hayaba inay u guntadaan sidii dalka loo badbaadin lahaa. hadalka Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa laga dhadhansan karay in weli ay kala aragti duwan yihiin maamulada Jubbaland iyo Puntland oo isku dhinac ah iyo maamulada Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo isku dhinac ah taageerana ka helaya Villa Soomaaliya. iyadoona iminka shirkan fasax kooban la galay si wada tashi dib ay ugu laabtaan dhinacyada ka qaybgalaya. laakiin dadka qaar waxay u muuqdaan in ay arintan u arkaan Qoorqoor hadalkiisa mid weli muujinaya in isu tanaasul uusan jirin oo qof walba halkii uu horay ugu dhagnaa uu ku dhagan yahay. wadaado u socday Quraansaar ayaa lagu laayay qarax iyadoona faahfaahino kala duwan ay ka soo baxayaan tirada wadaadada ah ee geeriyootay iyo kuwa dhaawacmay. faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay dad shacab ah oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Boqol ee koonfurta dalka Soomaaliya. wararka ayaa sheegaya in qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ay la kacday mooto 3 lugey ah oo ay saarnaayeen 8 wadaad oo u socday Quraansaar. ugu yaraan 6 wadaad ayaa ku dhintay qaraxaasi iyadoona ay ku dhaawacmeen 2 kale sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka ah oo dhacdadan goobjoog ku ahaa. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in wadaadada oo 2 ka mid ah ay walaale ahaayeen ay ka baxeen degmada Xudur isla markaana ay ku socdeen guri lagu casuumay inay Quraan ku soo akhriyaan balse wuxuu qaraxa ku haleelay wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Ceel Barde iyo Qurac Joome halkaasi oo loo maleynayo in al-shabaab ay miinada ku aaseen. waa dhacdo naxdin iyo argagax ku abuurtay dadka deegaanka welina mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee dhinaca ammaanka kama aysan hadlin guud ahaanba dhacdadan iyo sida ay u arkaan. wasiir ka tirsan Somaliland ayaa lagu waramayaa in laga helay cudurka dilaaga ah ee coronavirus isaga iyo shaqaalihiisa iyadoona Somaliland si degdeg ah ay u qaaday tallaabo la xiriirta in la badbaadiyo wasiirka caafimaadkiisa xarun gaar ahna iminka lagu dabiibayo. wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa waxaa la ogaaday inuu qabo COVID-19 kadib baaritaano lagu sameeyay inkastoo uusan ahayn mas'uulkii ugu horeeyay ee laga helo xanuunkan balse arintan waxa ay ku soo beegantay xilli ay soo baxaysay cabsida la xiriirta in coronavirus kiisas horle oo la xiriira deegaanada Somaliland laga helo. sidoo kale wasiir Saleebaan Yuusuf Koore ayaa lagu waramayaa in iminka xaaladiisa ay degan tahay wuxuuna sheegay shaqaalihiisa oo ku sugan Laascaanood in iyaguna laga helay xanuunkan isla markaana la karantiilay isagoo ugu baaqay guud ahaanba dadka reer Somaliland in ay ka taxadaraan khatarta xanuunkan oo dunida oo idil saameyn xooggan ku yeeshay. iminkana waxaan idiin soo gudbinaynaa daawadayaal xog gaar ah oo ku saabsan cidda gadaal ka riixaysa falalka kufsiga ah ee ku soo badanaya guud ahaanba dalka Soomaaliya.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sharciga dambiyada galmada ee baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyay ee gudiyada baarlamaanka gabi ahaantoodba ay soo diideen. Sheekh Nuur ayaa sheegay in isaga iyo shakhsi kale oo si dhow ay isugu dhow yihiin ay wax badan ka og yihiin in wasiiradda xilka sii haysa ee haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasiin ay tahay cidda gadaal ka riixaysa sharcigan iyo dhibaato kasta oo dalka ka dhacaysa dhinaca kufsiga marka loo eego. Wuxuu guddoonka baarlamaanka uga mahadceliyay inay ka hor yimaadeen sharcigan isagoo arintaasi ku tilmaamay tallaabo ay ku muteesteen in shacabka Soomaaliyeed ay ugu riyaaqaan in ay ku dhaqaaqaan tallaabadaasi maalin cad. Sheekh Nuur oo si toos ah ula hadlayay wasiir Deeqa Yaasiin ayaa u sheegay in dalkan uusan ahayn wadanka ay moodayso, waxaana ugu baaqay in sharcigan ay ula laabato cidii u soo dhiibtay una sheegto in laga soo diiday. wasiiradda haweenka ee sharcigan keentay in muddo ahna waday oo aan si shakhsi ah u ogahay. waxaan leeyahay walaalay joogso wadankan midka aad mooday maaha, haddii ay jiraan kuwo kuu soo diray waa la iga diiday ku dheh, ayuu yiri Sheekh Nuur Baaruud Gurxan. dhinaca kale waxa uu Sheekh Nuur Baaruud ugu baaqay inay toobad keento xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Maryan Haruun oo soo jeedisay in sifada muslimnimo laga saaro shuruudaha mas'uuliyiinta qabashada xilalka ugu sareeya dalka. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxa dul hoggaanaysa fadeexadii ugu ballaarneed tan iyo markii la ogaaday in sharcigan galmada sharci darrada ka hadlaya ee baarlamaanka ay u soo gudbisay uu yahay mid wadamada reer galbeedka laga isticmaalo diinta islaamkana si toos ah uga soo horjeesanaya.